dagaalka adeena hala joojiyana waxa weeye istaagi maayo muuse waxaan ku leeyahay maamulkaagu nabadna waa ku baaqaya madaafiicna dadkii ula dhacay bal adigu labadaas waa fiji maanta aan cadeynaya in la ascaanood waxa weeye saddexdii shay ugu dambeeyay oo maanta dagaal ka soconayo dagaalkaas oo runtii dagaal aan wax allaaliyo wax shacabka reer ascaanood loo reebtay aan jirin madaafiic lagu garaacayo hubka noociisa kala duwan nooc kasta oo ay hata lagu garaacayo aan loo aabayeelayn goobiga caafimaadka masaajidadii guryihii shacabka kaalmihii shidaalka iyo dhammaan adeegyadii bulshada shirkadii biyaha iyo taangiyadii intaba dhulka la dhigay madaafiicda iyo hoobayaashaasna waxaa soo tuuraya oo dadka sidaa u gelaya oo duulaanka ku haya waa maamulka Soomaaliland wey waxaan adduunka u cadeynaynaa shacabka adduunka jooga u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in meesha xasuuq ka socdo in aan dadka shacabka reer ascaanood ee duulaanka cad lagu hayo aanu hore uga hadalnay aweey ninku hadduu taliyo oo taladiisa la qaadan waayo in waxa weeye marka xeeriye fadhaal isku qoyaan la yiraahdo garaajawaco maxaa tala ama quraan uga hadalay waxaanu ciidamada Soomaaliland ka bixin oo guryahooda ku noqday waana laga diiday maanta halkaas maraysa salaadiinta soo hadlay ee media ka hadlay ee nin iyo nin aanu garanayo waa mahadsan yihiin hadaa doonaysa in hadal ka dhaco waa in ciidamada Soomaaliland ay oo ku noqdaan haddii ayna oo ku noqon waxaad ogaataan dagaalka lagu soo qaaday ee dadka lagu xasuuqay ee nooc walba hub kale ka dagaalamayaan waxa weeye ayna doonayaan in deegaankooda iyo dalkooda aan loogu talin ninna ma ogola gurigiisa in lagu taliyo waxaan maanta idin leeyahay haddii la doonayo dadkaasi inay wada noolaadaan haddii la doonayo dadkaasi inay daris ahaadaan haddii la doonayo dadkaasi in wanaag iyo sharaftii ay isu ahaan jireen ay ka dhaxayso haddii la doonayo abtinimadan iyo ehelnimadan jirtay haddeena jirta la doonayo waa in ciidamadaasi ay oo ku noqdaan dagaalka adeena hala joojiyana waxa weeye istaagi maayo golaha deegaanka ee maayarka ugu horeeyo waxaan leeyahay aad baan kaaga mahad celinaynaa dhammaan golaha deegaanka dadkan waa dadkii doortay haddii aad ka damqateen aad baan idinka mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay sida aad isugu duuban tihiin ee aad midka u tihiin ee gudaha ilaa dibadda aad isu raacsan tihiin waxa weeye midnimadiina si adkaysaan dadkana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u sheegaya in dadka deegaanka degan ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama dhulbahante ama fuqshini ama gabooye inay midaysan yihiin maanta taladoodu waa urursan tahay waa midaysan tahay meel bay taalaa meeshay taalaana waxa weeye dadka dariska ee nabad kula noolaadaan deegaankooda iyo dalkoodana ay u madax banaanaadaan oo taliyaan waxaan leeyahay musabixi wuxuu yiri baaq nabadeed ninba hadda koor wuxuu yiri war ilaahay ha laga boqo walaal wala taagtaagaya aan ku leeyahay maamulkaagu nabadna waa ku baaqaya madaafiicna dadkii ula dhacay bal adigu labadaas waa fiji